بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين باميل والبو أد عالم ككتشوكتان حلقة أد نجلس عتان وقول شو داود يالدقي استيال مركنا وحنو ديسو قد بنينا ورئيسي أنو مركاسي لي لنينو أحمد شيري فغالي أو إسوغو وزير كورفافينتا مركاسي قلمدو haddaba axmed fogalle imika waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho isaga oo inta badan fadhigiisu uu yahay markaasi galmudug state soo daawadayaal dhegaystayaal bal markaas waxaan jecelahay inaan axmed fogalle idinku soo dhaweeyo mardhow laakiin kaalimaha suugaanta ayaan jecelahay in markaasi wax yar wada milicsano أنتو كلام ترن مقضي وحبي القعن وحسنا مقوي مالتي تلك الأمضي مقعي قلب سمر بحي مالتي قلب أي ما أنت تاهي ملاقضي وان يركعي ayaanta dhammaanteenba madaxaana wada furanoo maaragtay haddana waaba galmudug isteede axmedow kusoo dhawow waraysiga aad baan ugu dhowahay anigoo madaxu furan yahay waan kaaga mahadcelinayaa sida aqbalaada aad naga aqbashay in aan waraysi kula yeelano axmed maanta waxaad ku sugan tahay magaalada muqdisho ee caasimadda ah marka waxaan jecelahay bal maadaama in muddaa aad ahayd wasiirka warfaafinta ee galmudug state marka ugu horeysa adigoo si kooban dadka isugu sharaxayo ayaan marka horeba kugu soo dhaweeyo magacaygu waxa weeye waa axmed shire falaagle farabta waa cawska la falkiyo waa neenasteeda aabahay neenastiisa weeye waxaan ku dhashay gobolka mudug waqooyi bari mudug dooxa la yidhahdo golol degmada afurwaaqo waxbarashadeeda hoose dhexe iyo sare iyo ilaa heer jaamacadeed waxaan ku dhameeyey magaalada muqdisho markaan nin weyn noqdana waxaan ka mid ahaa dadkii soomaaliya kasoo hayi jiray 1990kii waxaanan socod dheer ka bacdi aan saldhig ka dhigtay oo deganahay magaalada london ee waddanka united kingdom haatana waxaan ahay wasiirka warfaafinta ee galmudug oo dhusmadheeb jooga oo saldhigiisu yahay waxaan ka mid ahay dowladdii ka horreysay dowladda oo hadda axmed cabdikaariyo madaxda u yahay aan wasiirka warfaafinta ka ahay dowladdii xaafka ka horreysay waxaana ka mid ahaa faraktoriskii soo laabtay anigoo marka hore ahaa wasiirka macdanta iyo biyaha sidaas ayaan maaragtay wasiir kula geli aada weyn run ahaantii shaqo badan ayaad soo qabatay waan maaragtay kaaga mahad celinayaa mar kale sida aad marka waqtigana aad u ilaalisay ee aad noogu guud martay markaan u gudbo su-aasha xigta axmed maxaad inooga sheegi kartaa qaybta dhanka saxaafadda oo aad hadda ku guda jirto waxyaabaha aad ka beddeshay tan iyo inta aad xilka qabatay run ahaantii saxaafadda isbedel weyn ka jira oo horumar ah oo aanu kordhinay tababarada aad u badan oo ay qaataan saxafiyiinta galmudug xafiisyada iyo isku xirka wasaaradda oo aan awal jirin waa jiraa raadiyada ismaha waa jiraan telefishinka dhowr jeer ayuu cilado galeen oo haatan bayskiisa laga dhigo dhusmareeb mar dhowna hawada galayaan rajeynayna inuu mar hore hawada galay ahayd laakiin duruufo jira awgood ayay suurtageli weday laakiin aad iyo aad saxaafadda anu tayadeeda kor ugu qaaday sidaad la socoto saxaafaddu waxa weeyaan waa mid laba af leh waxay u baahantaa marka qof aqoonteeda u leh xiriirna la sameeyo iyadoo maaragtay madax bannaan ayaa haddana si wada jira wada shaqeynaa waxaan ka mid ahaa maamulada sida taxadar kale uga feejignaada in suxuufiga la caburiyo oo waxaana maamulka ugu farsaarka yar
marmar dhifa mooyaane aan aad uga caroon qaldaad ka yimaada saxaafadda annagoo tixgelinayna tababarkooda iyo xilliga lagu jiro. Baran Axmed, saxaafaddu waa laba seef oo hadba midkaad isticmaashid ayaad maaragtay saameynteeda arkaysaa. hase yeeshee marka aan dib ugu laabto taariikhda, saxaafaddii ugu dhaawaca weyneed ee dunida soo martay waxay ahayd waddanka Rwanda oo qabiilku markii laba loo kala bixiyey dad badan halkaasi ay ku dhammaadeen. taariikh lama ilaawaanana maaragtay reebtay iyo mahadhooyin. sideebaad idinku u kontarooshaan amaba aad dhalinyarada soo koraysa uga wacyigelisaan si ay markaasi waxyeello ugu geysan shacabkooda? horta sideedaba Soomaaliya ma soo marin saxaafad madax bannaan oo la dhaxlo oo haddii ilaahay ku idmo lagu hirto inta la yidhaahdo taariikhdaas waxa laga barto cilmiga waxa laga barto. waxaad ogtahay dee wax badan kacaanka ee dalka haystay cunaa hal wargeys iyo hal raadiye oo aan si la doono loo bandhigi jirin. dadka Soomaalida waxay dhegeysan jireen raad weyn ku reebtay idaacadda BBC-da laanta afka Soomaaliga oo wariyaasha intooda ugu nuxurka badani wixii nasiib u helay ay geli jireen. halkaasaa laga dheegan jiray qaabka warka loo dhigay sida ay tahay, xorriyadna laga dareemi jiray, ayadoo weliba aad garanayso dee BBC waddan ajnabi ah iska lahaa oo ulajeeda siyaasadeed ka lahaa, laakiin duruuf baana baday. wixii ka dambeeyena waddanku wuxuu galay qalalaasa siyaasadeed iyo dowlad la'aan iyo lugtaa furan. dhalinyarada dadka hadda suxuufiyadda aad ugu hawlani dadka suxuufiyadda hadda aad ugu hawlani waa dadkii dagaaladii ama koray ama dhashay. hadday noqoleed waxbarashada iyo hadday noqoleed habka hanaanka ay waxay u tabinayaan intuba saxaafadda bulshada ku dhex jirtaa bulsho colaadaysan oo kala tagtay oo iscolaysay oo dagaalo sokeeya mareen oo hab qabiil ah oo hab diineed ah oo hab kala qaybsanaan ah ayay ku dhex koreen. marka qofka suxuufigana badanaaba warkaaga hala dhegaysto oo macnaha sameeya ayuu saxaafadda u galaa. marka waxaad moodaa dadka inteeda badan wararka ay dhegaystaan waxay xiiseynayaan inay yidhahdaan yihiin wararka ama qabaa'ilada ama deegaanada ah oo markaasi keena qaladaad badan iyo tira badan iyo tiknolojiyada faraha badan ee adduunyadu ay maraysaana innagoo kala daadsan oo dowladnimadeedu ay hooseyso ayaa adduunku tiknolojiya gaaray oo waxay noqotay inaan idaacado kooban iyo wax la kontarool kara aysan noqon. qof waliba jeebkiisa ku sitaa intuu doono oo video ah ama idaacado ah. marka dhib weyn oo Soomaaliya dhan haystaa waa jiraan oo ah daad kusoo fatahay Soomaaliya. dhalinyarada arrimahaas ku hawlan laftigooda ayay ka tambadisay saxaafadda iyo maaragtay warbaahintu. marka laakiin intii lala tacaali kara waa lala tacaalaa. ka galmudugahana waxaan ka mid nahay meelaha sida aadka aan wada shaqaynta nooga dhaxayso dulqaadna aan ugu jirno dhalinyarada duruufaha jira awgeed inagoo tixgelina. waa tahay Axmed, marka aynu halkaa ugu gudubno saxaafadda iyo saameynteeda iyo weliba shaqada aad hadda ku guda jirto, caawa waxaad ku sugan tahay magaalada Muqdisho. warar xilo ogaala ayaa sheegaya caawa inuu shir ka jiro kaasoo lagu heshiisiinayo amaba la isugu soo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. inta aad ka ogtahay maxaad nooga sheegi kartaa? wasada la socotay baryahanba waxaa soconayay arrimahaas ayaga ah. waana wax jiro oo mar walba ayaamahan warka ugu xiisaha badan wuxuu ahaa khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Axmed, codkaagu wuu gaaban yahay. shirkaasi caawa aladii weydiisay anu xog ballaaran kama hayo. hadduu jirana waa mid dadka Soomaaliyeed ay aad u danaynayaan. waxaa laga filan karaa waa guul. aad baad u mahadsan tahay Axmed. runtii barnaamijka intaan ugu talagalay 10 daqiiqo ayaan barnaamijyadeena tabinaa. waxaad haysataa hal saac aan dhahay hal daqiiqo oo kaliya. maxaad jeclaan lahayd bulshada Soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa inaad u sheegto? bulshada Soomaaliyeed waxaan jeclahay guud ahaanba in meel walba ay joogaan ay nabadda xigsadaan, gaar ahaanna ay dhowraan qarannimada, dulqaadka iyo hofnaantuna ay noqdaan mid ay ku ilbaxaan. khaasatan bulshada reer Galmudug oo beryahan lala dabagalay dacayado iyo kala qaybsanaan dad kooban oo hunguri
kooban wataa ee wadaan waxaan leeyahay galmudug marxaladday ku sugan tahay waxa weeye waa marxalad aad u sarreysa yaan dib loo celinin isbaaro iyo kala qoqob horuu noo soo maray cid kasta oo la timaada in galmudug wax loo dhibo la kala qaybiyana ee shacbiga reer galmudug waa inay gacnaha isqabsadaan kala hortagaan hab noocee uga hortegi karaan aad isleedahay waxay uga hortegi karaan buunbuunin ayaa jirta iyadoo laga faa'iidaysanayo khilaafyo jira awgood marka waxay uga hortegi karaan maanta galmudug la wada leeyahay oo laba hiiraan oo mataban agtiisa iyo gaalkacyo isku xiranaya jira oo nabada oo aan isbaaran lahayn oo colaad lahayn isdil lahayn dowlad iyo kala dambeyn ayaa jirta isdhexgal bulshaa jira horumar ayaa jira awalna wixii aan kusoo jiri jirna waxay ahayd danley dadka kala qaybisa oo isbaarada iyo kala qaybsanaanta iyo kala qoqobnaantu ka macaashay waayahana horumarka la sameeyey oo arka hoos u dhac kuwaasoo marada bitinayana waxaan leeyahay waad ogtihiin ha ka yeelinana gacnaha isqabsada wixii qaladaadoo jirana dowladdu diyaaray u tahay in la saxo meel walba iyo gobol walbana waa inuu difaacdaa dowladnimadiisa marna aan la ogolaanin in la kala qaybsamo kuwa filooyinka nagula dhex jirana gacan bilah qabanayna shaatigay doonaan ha huwanaadaan ama mid diinad ha huwanaadaan ama mid reer ha huwanaadaan ama mid hunguri ha huwanaadaan waa tahay axmed fariintaada si aad baad ugu mahadsan tahay dadweynaha aad baan kaaga mahad celinaynaa dadweynahana waxaanu leenahay tan intaan dib ugu kulmi doono barnaamijka xiga ama wareysiga xiga sidaas iyo nabadgelyo aad baad mahadsantahay maalintii galmudug ayay maanta tahay laqoodayey waan mirkacee madaxaad ifuran madaxaad ulaqoodayey waan mirkacee madaxaad ifuran isma ogi markani isma ogi meelaan marayaba ama ogi macankii qalbigu markan waa galmudug maqsad baanu madaxa nafuran annaga madaxa nafuran isma ogi markani isma ogi meelaan marayaba ama ogi macankii qalbigu markan waa galmudug maqsad baanu madaxa nafuran annaga madaxa nafuran lama kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta maanshii dareen matalaadka weeye ayaa iigu muday maantoo kalena madaxa nafuran annaga madaxa nafuran